joogta halkan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wasiirka amniga gudaha Abuukar Ismail Ducaale taliyaha hay'adda sirdoonka dalka dhammaantood VIP day fadhiyaan sida madaxweynaha oo kale kuma aanay soo wareegin garoonka intii aan joognay haddaan nahay tiimka ama kooxda BBC laakiin intii hadda aan joognay waxaan aragnaa madaxweynaha oo garoonka ku soo wareegaya marka waxaa haddii rabbi idmo aad toos ugala socon doontaan khudbadda uu madaxweynuhu halkan ku jeedin doono BBC Somali Facebook sidoo kale wararka ugu dambeeyey la xiriira isu soo baxyadan lagu diidan yahay weerarkii sabtidii muqdisho ka dhacay dadka ku dhow 300 ay ku dhinteen waxaad toos ugala socon doontaan idaacaddeenna 5 galabnimo oo ay naga xigaan hadda qadar 25 daqiiqo ah aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sidaad u daawanaysaan oo noola socotaan laakiin dhegeystayaasheenna halka VIP-da loo yaqaano dhalinyarada aad arkaysaan waxaa wejiyadooda u xiran calan guduud ah waxay u murugoonayaan dadkii ku noqday weerarkii sabtidii ka dhacay muqdisho qaarkood waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin waxaan ka xunnahay sida aad u aragtaan boorarka ay wataan waxaa ku qoran dadweynaha aad aragtaan waxay wataan boorarkaas ay ku qoran tahay weli waa nool nahay waanaan guulaysan doonaa dhammaantood waxay ka xun yihiin weerarkii sabtidii dadka badan lagu dilay ee ka dhacay isgoyska Soobe waxay joogaan garoonka Konis Stadium dhalinyaradan ayaa rabaa qaarkood inaan la hadlo magacaaga ii sheeg iyo sababta u soo baxday waa magacii Abuukar Xuseen Axmed sababta Abuukar Xuseen Axmed waaye agaasi magacii waa Abuukar Xuseen Axmed oo soo baxay dalka oo lagu leeyahay dadka Soomaaliya ee ka mid ah Soobe oo soo baxay oo fiirooday waxaan jeclahay kale wax ma qabo karo laakiin inta dhimataan waxay inta nool xaleeyahay Allah bogsiinayo arwa insha Allah ina u fiiroodo ina u dabaaldego wadanka in nabad noqoto insha Allah waxa qabo kara dama laakiin waxa insha Allah xaleeyahay ina waxa qabo kara diyaar waa BBC Somali Facebook ayaa shacabkaaga ku soo dhawow mudane gudoomiye soo dhawow Taabil Cabdi Maxamed falyatafadal Yes,